dilkiisa qofkii ka qayb qaata walow hal eray haafkiis ba Allah ka dhigo dil ma aadan wada dhihin di ayaa tiri wad u bilowday di ayaa tiri dil meeshii aad ka dhihilahay ilaahay la kulmaa isagoo labadiisa indhood uu ku qoran yihiin qofkan wuxuu ka quustay naxariistii ilaahay ilaahay wuxuu yidhi qof muumina qofkii kas u dil ah oo xaq darro ku dila abaalmarintiisu waa naarta jahannamo war miyaad xamili kartaa naarta jahannamo walciyaadu billaah war dhiigga muslimka ah ee daadanaya ha u malaynina dhibac qof muslime dhiiggiisa dhulka uu ku daatay inuu meel cidlaha uu dhacayo ha u malaynina waxaa ka dhalan doona abaaro oo qofkii gacan ku dhiglahaana aan ku koobnaan doonin ee dadka magaalada jooga iyo dadka miyiga jooga fitan wada camimi doontaa ka dhalan doonta markii gaalnimo laga soo tago dembiga ugu culus oo ilaahay laga galo subxaanahu wa tacaala iyo xuquuqda bini aadamka laga galo waa dhiig muslim oo la daadiyo walaalayaal ilaahay qur'aanka wuxuu ku leeyahay wattaquu fitna laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa iska ilaaliya oo iska jira fidno aan gaar ku noqon doonin kuwii daalimiintahay fidnada sameeyey waxa ka dhalan doonaahay gaar kuma noqon doonaan dadkii gacan ku dhiiglayaasha ahaa keliya bal siyaasaddii yaa xumaan doonta caafimaadkii yaa xumaan doona abaaro ayaa dilaaci doona sicir barra ayaa dilaaci doona arrinkan haddaan gacanta laysaga qabanin asxaabati alkiraam ajmaciin walaalayaal waxaanu doonaynaa halkan inaanu baaq uga jeedino dadka dhiigga muslimiinta ah uu la fududaaday ee daadinaya dadka muslimiinta ah dhiiggooda magac kasta oo qofkaasi uu sheeganayo iyo sabab kasta uu ku daadinayo dhiigga muslimka ah walaalayaal qofka muslimka ah dhiiggiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu xushmeeyey ilaahay wuu qadariyey maqaam weyn ayaa ilaahay gaarsiiyey qofka muslimka ah xushmaddiisa iyo dhiiggiisa lidaalika marka qofka muslimka ah in xaq darro lagu dilo oo magac qabiil aad ku disho qof muslim ah ee walaalkaa ah oo magac siyaasadeed aad ku disho oo magac xaq darra aad ku disho waa xaaraam walaalayaal waana jariimo weyn markii gaalnimo laga soo tago dembiga ugu culus oo ilaahay laga galo subxaanahu wa tacaala iyo xuquuqda bini aadamka laga galo waa dhiig muslim oo la daadiyo walaalayaal walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala cuquubaad shan ah ayaa ilaahay uu ka ratibay qof muslima oo dhiiggiisa la daadiyo ilaahay qur'aan kariimku wuxuu ku leeyahay waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanah waacadda lahu cadaaban cadiima bal arrimaha ilaahay isdaba dhigay miyaadan ka xishoonayn rabbiga inta ilaahay isdaba dhigay ee cuquubaada bal fiiri fajazaa'uhu jahannam ilaahay wuxuu yidhi qof muumina qofkii kas u dil ah oo xaqdarro ku dila abaalmarintiisu waa naarta jahannamo war miyaad xamili kartaa naarta jahannamo walciyaadu billaah miskiinkaasaa tahay daciifka ah dabkaas aannu shidanayno haddii fartaa aad u dhowayso waad soo cararaysaa naaru jahannam ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalmarintiisa ilaahay ka dhigay qof muslim ah qofkii dila khaalidan fiiha isagoo weliba ku waaraya yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala waqadiba allaahu calayhi walacanah ilaahay wuu u cadhooday cadho ilaahay miyaad xamili kartaa walaal walacanah ilaahay lacnaduu ku riday qof muslima qofkii dila lacnadda ilaahay macnaheeduna waxaa weeye albucdu min raxmat illaah naxariista ilaahay inaad adduunyadana ka fogaato aakhiradana naxariis ilaahay aad ka fogaato weye macnaheedu waacadda lahu cadaaban cadiima cadaab weyn ayaa ilaahay u diyaariyey subxaanahu wa tacaala nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xadiiskii ibnu maajah uu sunankiisa ku warinayey wuxuu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam low anna ahla asamaa'i waalard ishtarakuu fii dami mu'min laakabahum allahu jamiican fi nnaar ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala samaawaadkii ardada ummadaha ku nool haddii qof mu'min ah ay ku shirkoobaan oo qof walibaahi kaalin uu ka qaato qof muumina inay dilaan oo isugu tagaan
dhammaantood ilaahay naaru jahannama ayuu gelinayaa subxaanahu wa tacaala walaalayaal casabiyadu waa nooc jaahiliyadda ka mid ah waa caqli darro qabyaaladdu waa maangaabnimo qabyaaladdu waa caqli xumo qabyaaladdu waa damiir xumo qabyaaladdu waa diin la'aan qabyaaladdu waa dadnimo xumo qof damiir leh qof caqiide leh qof iimaan leh qof muwaadin oo waddankiisa jecel magac qabyaalad waxba kuma dilo walaalayaal nabigeenna sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mid a ansaar iyo muhaajiriin ayaa midkood ansaartiina waxay yidhaaheen yaa lalansaar muhaajiriintiina waxay yidhaaheen yaa lalmuhaajiriin markaasuu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhaha badacwa aljaahiliya wa ana bayna adhurikum ma sidii jaahiliyada ayaad isugu yeeraysaan ma jaahiliyadii diin la'aanta ayaad dib ugu laabateen anigoo idinku dhex jira ayuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam lidaalika walaalayaal dadka dagaaladaa hurinaya qof walbaahi kaalinta uu ka geysto gacan ku dhigle ayuu ku noqonahay haddaad qarash ku bixiso qarash haddaad ku bixiso waxaad tahay qofkii gacan ku dhiglaha ahaa haddaad ku taageerto codkaaga oo qabaa'ilkaa dagaalamaya aad guubaabiso oo tidhaaho iska celiya heer hebel aad iska celiya aad tidhaahid waxaad tahay gacan ku dhiigle nabigeenna sala allahu calayh wasalam xadiiskii ibnu maajah uu warinayey wuxuu ku yidhi man acaana calaa qatli muslim walow bishadri kelima laqiya allaaha maktuuban bayna caynayhi aayisun min raxmat illaah qof muumina dilkiisa qofkii ka qayb qaata walow hal eray haafkiis ba allah ka dhigo dil ma aadan wada dhihin di ayaa tidhi waad u bilowday di ayaa tidhi dil meeshii aad ka dhihi lahayd ilaahay uu la kulmaa isagoo labadiisa indhood uu ku qoran yihiin qofkani wuxuu ka quustay naxariistii ilaahay naxariistii ilaahay ayuu ka quustay marka dadka jeebku dhiglayaasha ah oo jeebka furaya dhaqaalaha ku bixinaya weliba sida warbixin aanu ku helnay dadka taageero dagaalada qabaa'ilka ee qabyaaladda iyo jaahiliyada ku dhisan in badan oo ka mida waxay joogaan dibadahay lacagaha ka soo shubaya qaarkoodna gudahay ka shidayaan dabkii marka dadka jeeb ku dhiiglayaasha ah iyo dadka carab ku dhiiglayaasha ah ee dagaalada hurinaya iyo dadka qalbi ku dhiiglayaasha ah oo goobaha markay isugu tagaan dhahaya heer hebel oon annagu ka dhalannay ayaa ka dilay 20-30 maanta waan guulaysannay dhahaya kulligood waa ahlu naar haddaysan ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keenin oo ficilkaa aysan gacanta kala bixinin jeeb ku dhiigluhu waa ahlu naar carab ku dhiigluhu waa ahlu naar gacan ku dhiigluhu waa ahlu naar qalbi ku dhiigluhu waa ahlu naar qayb walba oo dagaaladaa qofka uu ka qayb qaato qofkii wax dilay ayaad la mid tahay sidaas awgeed waxaan ugu baaqaynaa dadka cuqaasha ah ahlulxalli waalcaqdi culamaauddiinka iyo dadka mas-uuliyiinta ah qof walibaahi arrinkaa inuu ka dhiidhiyo oo qof walibaahi uu ka qayb qaato arrinkaa sidii lagu joojin lahaa war dhiiggaa muslimka ah ee daadanaya ha u malaynina dhibac qof muslime dhiiggiisa dhulkaa uu ku daatay inuu meel cidlaaha uu dhacayo ha u malaynina waxaa ka dhalan doona abaaro oo qofkii gacan ku dhiglahaana aan ku koobnaan doonin ee dadka magaalada jooga iyo dadka miyiga jooga fitan wada camimi doontaa ka dhalan doonta waxaa ka dhalan doona cudurro xuxun waxaa ka dhalan doona barakac baahsan waxaa ka dhalan doonta siyaasadda oo naga qalloocata waxaa ka dhalan doona dowlad la'aan waxaa ka dhalan doona amni la'aan waxaa ka dhalan doona sicir barar musiibooyin oo dhan ayaa ka dhalan doonta dhiigga muslimka haddaan la joojin ilaahay qur'aanka wuxuu ku leeyahay wattaquu fitna laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa iska ilaaliya oo iska jira fidno aan gaar ku noqon doonin kuwii daalimiintahay fidnada sameeyey waxaa ka dhalan doonaahay gaar kuma noqon doonaan dadkii gacan ku dhiiglayaasha ahaa kaliya bal siyaasaddii yaa xumaan doonta caafimaadkii yaa xumaan doona abaaro ayaa dilaaci doona sicir barra ayaa dilaaci doona arrinkan haddaan gacanta laysaga qabanin haadaa wabilaahi towfiiq